السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مغلطلو هدادي مقشان ها إي سو قراد وقت يربان كسو هريو وغا شقادي أحمان كسي ورد لهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مغلطلو هدي الله مغلا ها إي سو قراد ينا عودك كرو قادي إن كلا wax yar baan yaa yara sugaynaa in yar 2-3 daqiiqo miyaa lay maqlayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu daahiro waa kaa qaaday ma lay maqlaa oo okay aad baad mahadsantihiin cabdinuur aad baad mahadsan tahay waa lay maqlaa baa laga sheegay اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وحفظن بان كلا نصني أنا إيو بهالكن لكن مركز حلولين جل مركز إسكدا استرادة وحيالا قاركود يا تسكوير قادر ساينا مقارنة سايت هاي خاصة إن لغير هادلو نقول كفواني ننا مركا برياهان يعني السوشيال ميديا وحيالا بدن با يردح سعودي hadday ahaydeen meelahaas wax lagu soo qoro iyo isdacaadeyn iyo isdhalaacayn iyo markii dambena dee xadgudub ciiddaa ka batay oo meela lagu soo duubay dad aan soomaali ahayn xitaa ay soo duubeen marka mid baan ii sheegayo anigu ma difaacayo dowladdan iminka jirta saanu isku nahay waad ka wada warqabtaan hal shaksina ma difaacayo inaan difaacana sharafteeda ka mid maaha waxaanu difaaci jirnay awal baynu u ordi jirnay ma ahayn ashkhaas mana ahayn ma garanaysaa dowlad meel joogta waxaad shacab baynu u hadli jirnay taasina waa waajib dhammaanteen inooga saaran oo wixii ummadda jar ka tuuray aad aragto inaan ka aamusnaa waa laga fiican yahay haddaynu wax kaga qaban karno ficil haddaynu wax kaga qaban karno ma garanaysaa gacan haddaynu hadal wax kaga qaban karno ka ugu dambeeyana de ma garanaysaa sidii xadiiska rasuulku sheegayay waa yacni waa qofka ugu dambeeya oo waa ka laabta ka nacaya marka habay nagu cuslaato laakiin waxaan ku khasbannahay waxyaalaha qaarkood inaynan ka aamusinoo siday yihiin aynu waxyaro kala bayaamino inta aynu wax ku ognahay marka anis siday iila muuqatay iyaan sheegi doonaa haddii la idhaahdo waan idin faahfaahin doonaa waxa kaloon idinku dari doonaa ogeysiis aan ka wado qoladeedii ururkii la odhan jiray siraaj ama imikaba la idhahdo siraaj daad sii jeclaataan marka taas baa isoo gelisay inaan dhowr kelmadood ka idhaahdo cajaladaasi u dambeysay oo magacayagii lagu xusay magacii ururkaan idhahdee lagu xusay ashkhaas naga tirsanaan jirtay maanta iyana naga tirsanaan beena lagu xusay iyakana kooxaa la sheegay waxaa la sheegay kooxda nairobi baa la yidhi halkaasaa lasoo mariyey dhowr dowladood bay baashaasi isku keentay nairobi iyo qatar iyo kenya iyo etoobiya iyo waxaasoo dhan baa la isku dhex daajay marka si markaad u fiiriso falcelinta ay bulshadu ka falcelisay markaad eegto waa baab waa si gooniya
sida ay iyaku ula jeedeenna waxaa laga yaabaa inaynaan de inagu kuma dhex jirne yacni markaad dhinac ka eegto eed si fiican u raajiciso eed waxaa dhegaysato wax baa kaaga soo dhex muuqanaya runna way noqon kartaa yacni mana noqon karto xaqiiqda marka loo dhaadhacana ciddii waxaan samaysay ee soo dubtay iyadaa garanaysa waxay uga jeedeen bulshadu waan dhowr siyaabood bay uga falceliyeen dadka qaarkood waxay ku leeyihiin war waxaan niyow dadkun baa lagu wareerinayaa waa yacni waa nimankan meesha jooga unbaa isu keen qaybiyey oo markaasay qaar na xaggan mareen qaarna xaggan mareenoo waxaa la jira awgood ayaa ma garanaysaa ayaa la doonayaa in lagaga hortago ama wax ku soo socda ama wax khaldamay baa lagu daboolayaa deetana markaasaa baashan dadka loo dhiibay oo lagu yar wareerinayaa waa fikirka bulshada xaggeeda ka socda wey yacni si ay bulshadu uga falcelisay weeyaan laakiin waxyaabaha meeshaasi ku duuban haddii aad xabashiga kulli anigu waa laga badiyaa taqaano oo aad si fiican u dhuuxdo wax kaaga soo baxaya in waxyaala khatartooda leh meeshaasi lagaga hadlay yacni wax aan fiicnayn baa meeshaasi lagu sheegay waxaan fiicnayn oo dhammaan ummadda wada taabanaya oo dadka wada taabanaya oo yacnihii lafjab oo kale noqonaya oo ummaddaasi baabi'eeda horseedi karaya ayaa meeshaasi lagu sheegay taasina wax fiican maaha haddaynu inaku wax isku qabno maxaa ina gaadhsiiyey in aynu nimaan afkeenna ku hadlayno intaan kiraysanno aan wixii isku dayna inaan faafino oo meesha ugu badan yani etoobiya aan gaadhsiino yani macnayaal fara badan baa kaaga soo baxaya meeshaasi ka urur ahaan waxaan idiin caddaynayaa haddaan ururka siraaj nahay annagu waxaan ka ogeyn ma jirto markaan sidaa leehay macnaheedu maaha ashkhaas ururka ka tirsanaa may ogeyn maaha way ogaan karaan way ku jiri karaan bini aadan baa leeyahay maalmihii habeen baa la khaldamaya laakiin annaga oo ku magac lahayn ururkaasi wax official ah oo arrimaha meesha ka dhacay aan ka ognahay ma jirin qadarna lamaali soo xidhiidhin malaayiin lacag wala na siiyeyna ma jirto halkama maanaan joognayn yacni waxyaalo badan oo iska malaawaalo la iska abaabuuray way jiraan sidaan soo sheegayna haddiiba ay dhacday ashkhaas annaka naga mid ahayd in ay waxaasi ku jireenna annaga waxaan ka ognahay ma jirto laakiin officially wax ururka siraaj uu arrintaasi lug ku lahaa oo jirtay maana jirin ciddii markaa waxaan keentay laga yaabo dadka qaarkood siday farta ku fiiqayaan in kuwii ururka siraaj laftiisa aasaasay bay ka mid ahayn nimanka waxaan soo tabinaya oo yacni wararka noocaana gudbinaya haddii ay ahaayeenoo iyaku ay sidaa ku gudbiyeenna caddaynteedii iyo wixii o dhan iyakaa laga sugayaa annagana ma garanaysaa waxyaalaha noocaasoo kale ana kulle inaan ka hadhno dadnimada ka mid maaha hadday iyaga ajende siyaasadeed dadka uga dhiga islahaayeen ama ka dhigta islahaayeen kulle annaga waxaa noo tahay waxaanu ka shaqaysan doonaa haddii la idhaahdo kow magacayagii baa lanagu xadgudbay waa lanagu been abuurtay waxaanaan ahayn baa lanaga sheegay dadkiibaa shaar waraabe lanagu gelinayaa intaasoo dhan wax la qaata maaha marka haddii ay iyaku islahaayeen yacni dad kaga naxsada oo wax kaga daadsada oo yacni wax ku hela oo mansab siyaasadeed ku gaadha hadday islahaayeen way la fududaatay laakiin caalamka waxaa jira si wax loo baadhana way jirtaa si waxaasi loo gaadhaana way jirtaa taasi waa taas oo waxaan caddaynayaa inaana annaga fishanka iyagana ahayn yacnihii wixii aanu isku soo urursanay ee aanu ku heshiinayna ahayn waxa ajiradaasi ku duuban inaanu magaranaysaa kililkii oo dhan iyo gobolkii oo dhan inaanu qolo asal raac la yidhi gacanta u gelinayno waxaas wax ka jira ma jiraan waa been abuur cad oo dad soo mulmulaaqeen haddii ay jirto waan ku celinayaa haddana haddii ay jiraan ashkhaas magacayaga lahaa oo ka qayb galay annagu taasi waxba kama ogin waxaan shaqo ku leenahayse maaha wax official inoo soo gaadhayna maaha wax siraaj iyo dhex maray qadar ma jiro wax siraaj iyo imaaraadka dhex maray ma jiro siraaj iyo fahad muxuu ahaa kii fahad yaasiin wax dhex maray ma jiro wax naga dhexeeyaana ma jiro yacni waxaan isla soo galnayna ma jirto shaqana kuma lihin that should be clear taas markay sidaa u caddaato haddaba haddii ay dhacday in annakii lanagu been abuurtay magacaygii lasoo qaaday oo sidaasi la yidhi deetana annakayna jirtaa waxaan yeelayno yacnihii caalamku wuu isku wada xidhan yahay
meel kasta boolis wuu jiraa xaafadda igu sokaysan geyn karaa waxaasoo dhan yani waxaasaa lanagu eedeeyay shaqana kumali waa la baari karaa meel yani si wax loo baarana way jirtaa waddo loo marana way leedahay midda kalena waxaan odhan lahaa marka gruubkan la leeyahay nairobi gruub bay ahaayeen oo waxaasoo dhan baa iyay soo sameynayeen marka la leeyahay ciddan ka warramaysaa iyakuna waa gruub nocma gruubka laftiisay ka mid ahaayeen mise waa gruub kaloo iyaka laftooduna maqale laga soo abaabulay oo maqale gruub baa isna meesha socda waa suuragaltaa lafteedu yacni maanta waxay u muuqataa in wixii aynu ka soo gudubnay iyo dhibkii iyo balaayadii aynu islahayn ka nasta in mar labaad dib loo soo aasaasayo oo dib loo soo aloosayo ayay u eg tahay dhibkaasi halkuu ka socon jiray waynu garanaynaa maqaluu ka socon jiray iyo meelaha kale ama se etoobiyada kale runta haddaynu isku sheegnana waxaa loo socdaa waa hantidaada iyo dalkaaga iyo dadkaaga iyo intaan baa loo socdaa adiga dan lagama laha haddaad is leedahay mansa ku gaadh intaad kooxda magaranaysaa qolyihii maqale iyo wax isku soo xirxidhataan oo meeshii dib u qabso oo kale haddaad is leedahay hadda etoobiyada maantu inay tii tahay u malayn maayo sanadkuna inuu kii hore magaranaysaa 2016 iyo 2015 inuu noqonayo u malayn maayo wax badan baa isbedelay shacabka marka ayaan la rafaadin wax aan jirin yaan lagu wareerinin dadku dhib bay ka soo baxeen weli dhibkii bay ku jiraan in laga baxay xitaa u malayn maysid meelaha qaarkood hadaad aragtid dadku weli biyo la-aantii baa jirta isku dhicii baa jira qabiiladii ayaa jira cabashadii shaqa la-aanta ee dhalinyartaa jirta yacni mar kastaba gobolkeenni wuxuu yahay unku ka liita kuwa kale marka la barbar dhigo xaggii sare etoobiyadii waxaynu ku haysanaa ma jirto iyadoo waxaasoo dhan inoo yaallaan ayaynu wakti badan gelinaynaa in aynu magaranaysaa cajilad soo duubno oo dad aan yani waxaan jirin oo kale humaag beena in dadka loo abuuro oo lagu wareeriyo si magaranaysaa dadka qaarkoodna loo caddeeyo oo shaar waraabeynta loo geliyo shaarka la wasakheeyo la yidhahda magaranaysaa nimankan waa asraaco taa diintana waan ka hadli doonaa inkastoona malaa fiicneen xiliyadan oo kale in waxyaalaha qaarkood laga hadlo haddana waan ku khasbannaha inaan soo hadal qaadno ka hadlo taas markaan intaa idhaahdo aan idhaahdo kusoo gabagabeeyaan idhaahdo ururka siraaj wax officially arrintaasi uu ka ogaa ma jirin haddii ashkhaas ay ku jireenna iyagay u taallaa laakiin annaga ka urur ahaan iyo ka guddoomiye ahaanba waxaanu ka ogeyn ama aanu kala soconay arrimaha noocaas oo kale amaana jirin taas intaasaan iyadaynu kusoo koobaya tan kale odhanaysaa ma garanaysaa dowladda xaggeeda oo nimankani ay isku dayayaan inay dowladdii shaadh waraabo u geliyaan ay yidhahdaan ma garanaysaa nimankan waa asaraac kaninkii kale taasi dowladda u taallaya dowladdu inay iyadu isdifaacdo weeye haddii dadkani ay ku been abuuranayaan inay dowladdu tallaabo ka qaaday ahayd haddii aynay ka qaadaynina dee kalsooni darra xaggan dowladda lafteeda ka jirta malaa dee waxaan la sheegaya wax ka jiraan ma garanayno laakiin tiise waxay tahay dowladdu sidaa ay u qaadatay dowladnimada inay roolkeegana u qaadatay tahay ciddii sharciga jebinaysa ciddii dadka iska hor keenaysa ciddii dadka ma garanaysaa xadgudub samaynaysa in dadka laga qabto dadku xaq bay u leeyihiin taasayna dowladdu u yihiin marka la leeyahay ma garanaysaa waxaas halka diin baa lagu soo gabaday kii kale wixii oo dhanba nimankaasi waxay ku soo aruuriyeen oo leeyihiin waddankii wuxuu gacanta u galay cid aan etoobiyaan ahayn yacni halkaasa ay maraysaa baashii cidda loo dhiibayana waayo waa cid aan soomaali ahayn baa loo dhiibtay yaa la gaadhsiiy luqadaan soomaali ahayn bay xitaa ku baxaysaa yaa loola jeedaa cidda loola jeedo waynu garanaynaa yacni magaran weli waxaynu u jeelanahay baad moodaa barhkeen yeedhiskii laynoo yeedhin jiray baynu u jeelanahay oo aad moodo markii hore haddii Addis Ababa yeedhiska laga soo qaadan jiray imikana waxay u eg tahay in xitaa hoos loo sii dhacay oo qaarkeed ay maqale yeedhiska rabaan in looga soo yeedhiyo waxyaalahaasoo kalena waa waxyaala ay tahay inaynu ka korno ay ahayd inaynu ka korno magaranaysa oo aynu maqaamkii aynu lahaan lahayn ka soomaali ahaan aynu ku lahaan lahayn etoobiya in aynu dalbano oo aynu raadsano yacni annaga hankii nagu jiray wuxuu ahaa kolkaan ururka samaysanaynay hankii nagu jiray wuxuu ahaa in yeedhiskaasi la yareeyo in dadka gobolka deganaa iyagu isku tashadaan in aynaan cidna waxba u daba fadhiisanin in marka ugu dambaysa masiirka gobolku inaka naga soo go'o taasay ahayd wixii oo dhan baa laga tegey yacni waxaad moodaa inaynu halkaynu kor u bixi lahayn inaynu hoos usii baxayno ayaad moodaa marka waxyaalo badan oo waxaa jiray yacni
aad u fool xun oo laga yaqiiqsoonayo aan fiicnayn yaa jira oo socda. haddaynu saa kusii soconana waxay noqonaysaa inaynu ku jeelanahay in aynu inayna gumaysto diyaar u nahay, dad in la gumaysto diyaar u baynu nahay yani mar kasta. taasay ina tusaysaa taasina. marka anigoon ururkii siraaj weli kasii baxaynin, ururka siraaj waanu ismaqalay dhowaan, waxaanan shir ku qaban doonaa waddanka gudihiisa. shirkaas baa lagaga hadli doonaa xagga uu dhaqaaqaya ururku, ma urur buu sii ahaan doonaa, ma xisbi siyaasadeed buu ahaan doonaa, yacni dhanka uu u dhaqaaqayo. halkaas baa lagu go-aami doonaa, waana waddanka gudihiisa. dhowaan buuna dhici doonaa haddii ilaha yidhaahdo, muddo bil gudaheeda, sidaanu isla qaadanay dhalinyartii. wuxuu noqonaysaa ururku inuu dib isagu isku soo helo, oo ma garanaysaa aan dib isku define garayno, oo yacni halkaynu joognay, halkaynu u soconaa, iyo ma garanaysaa yaa inaga mid ahaanaya, saynu u soconaynaa, maxaynu noqonaynaa, mustaqbalkii ururku lahaa. in badan baad naga dareenteen inaynu aamusnayn, sababtuna wax kale ma ahayn. annagoo ururkaasoo dhisan oo aad garanaysaan fishankayaga iyo wax kastiba ay iska caddaayeen, ayaa qayb naga mid ahi ay dowladda ku biirtay. qayb naga mida markii anaka dowladda ku biirtayna waxay noqotay inaanaan iska rab yaacin. haddii aynu soo garab dhigano oynu dhahno ma garanaysaa ilayn rag annaka naga mida oo aan wanaag badan iyo karti badan ku tuhmaynay ayaa ku biiray dowladdiina xisbi baa hogaamiya. xisbigaasi dowladda hogaaminaya ayay ka mid noqdeen. automatically ninku markuu xisbigaasi ka mid noqdo annaga nagama sii mid ahaanayo, xeerowsaadkaygay ku caddahay, oo naguma sii jiri karayo, namana matelayo. marka laba mid baa noo gudboonaatay, inaanu bannaanka ka yar joogsano iyo inaanu mayna garab yaacno. garab yaacina waxaanu isnidhi wax faa'iida oo iminka keenaysaa ma jirto. xilliga lagu jiray awgeed iyo ma garanaysaa xasaasiyadda jirtay awgeed ayaanu waxyaalo badan uga tanaasulnay. oo haddii aanu idhaahno annakii unu meeshii aanu wadagalna haddana ma noqonayso. taasna waa yacni waxaan yaro fiicnay dowladdii cartoo kale oo wax lasoo dhoofiyo meesha la keenay relevant ma sii noqonayso. waxyaalo badan oo jiray awgeed ayaanu uga gaabsanay ka urur ahaan in aanu garab yaacno dowladdaasi. khilaaf baanu ku ordaynay, iska horimaad baanu ku ordaynay, isbarbaryaacuna sidiisaba dhib mooyaane faa'iide ma keeno. taas bay ahayd waxaanu uga soo gaabinay intii hore. hadda sanad baa ka soo wareegay. sanadkaasi waxaan filayaa in ay dowladdu waqti ku filan heshay, oo ama dee ay wanaag ku qabato ama ay ceebaheeda ku ogaan karto oo isku sixi karto inay heshay baan u malaynaya. taasna markaa waxay khasbaysaa in ururka yagiina uu dib isku eego, oon dib isku fiirino oon idhaahno halkaynu wax kaga habboon, yacni halkaynu wax ka qaban karnaa. annagu waxaanu u soconnaa mar kasta xukna maaha, yacni dana shakhsiyaadana maaha, sideennu wax u toosinaa, halkaynu wax ka abbaarnaa, halkay wax ka qaloocaaneen ka toosinaa. mar kale baa laga yaabaa haddana in aan idhaahno ma garanaysaa war bal horta inoo yarkaadiyo waa suuragal, mayna aynu hore u soconno xisbiyaasiyeed aynu noqonno waa option kale, mayna pressure group oo kale aynu noqonno iyaduna waa option kale. laakiin waanu jirnaa. waxyaalaha dacaayaadkaa la fidinayo ee la soo jeedinayana waxaan kaga jirnaa ma jirto. waan ku celinayaa intiina cusub iminka igu soo biirtay. waxaa jirtay dhowaan video la soo geliyey social media oo wax lagaga sheegayo ururka iyo ashkhaas badan. ururka siraaj wax alla waxuu ka ogyahay arrintaasi ma jirto. lacag ma jirto aanu ka qaadanay qadar, lacag ma jirto imaaraadka naga soo gaadhay, ma jirto asal raacnimo aanu soo dhoofinaynay oo aanu keenaynay gobolkeenna ma jirto. waxaasoo dhan wax ka jira ma lahan. wax officiala oo arrintaasi ka dhacayna ma jirto. ashkhaas annaga naga mid ahayd hadday arrimahaasi ku jireenna waxaanu ka ognaa ma jirto. that's it. marka haddaan intaasi ku soo koobo oon intaa kaga baxo, waxaa iyadna beryahan socotay in arrimaha diinta aada loo hadal hayay oo la leeyahay meeshii asal raacnimaa timiday iyo ma garanaysaa meena fikro nooc kale ayaa waddankii loo soo dhoofiyey. waxyaalo badan oo social media dhex socda ayaa jira. horta hal shay waynu ogno waynu ka wada dharagsannahay, dhammaanteen islaam baynu nahay, soomaali haddaynu nahay 100% dad islaama ayaynu nahay oo mandaqadaa ku nool. cid ma jirto maanta la leeyahay yacni diin cusub oo islaamnimada ka duwan baa meeshii timiday haddii la leeyahay waynu arkaynaa. laakiin waxaan jeclaan lahaa dadka maanta ka hadlaya arrimahaasi inay ka hadli lahaayeen xilligii axbaashta waddanka la keenay, oo waxay yihiin aynaan garanaynin. dadka maanta aadka u qaylinaya oo wadaaddaa waddankii qabsadaya inay taasi ka hadlaan ayay ku fiicnayd, oo xilligaasi ay ka hadli ayay ahayd.
يعني أحباش وحنا نقاني معا والدين يعني aad loogu ciyaaray oo ninkii mala zinaawi iyo fikrada noocaas oo kale iyo dad isaga la kulmay niman professorro isaga la kulmay ay yidhahdeen islaamkan adeygii haddii kugu soo baxo waxaa laga yaabaa in adigu aad dulqaadan karin maadaama waddankan ay muslimku ku badan yahay marka islaam yaroo iska fudud oo magacoo kalea ha loo abuuro wax noocaas oo kale ayuu ku yimid fikirkaasina meel laga keenayba taas maanta markaa waynu kasoo baxnay dhinaca kale markaad ka eegtidna maanta inaku uma baahnin waxyaalaha qaarkood in ay waddankeena faraha soo gashadaan amaba se laynoo soo dhoofiyo fikrada noocaas oo kale iyo haddii ay jiraanba anu ma aaminsanin inay jiraan waxa dadkaasi ay sheegayaan haddii ay jiraan laakiin uma baahnin meesheedii ma joogno xilligeediina ma joogno yacni way ka shaqayn weyday meelo badan wixii meel kale ka shaqayn waaya haddii adiga lagu keeno lagugu dayo in laguu shaqaysiiyana oo adun ku dhibaatooni waynu arkaynaa caalam islaam lagaaga sheekayn maayo burburka maanta ka taagan yacni waxaasoo dhan waa dad magacyo la baxay waa nooc min mashaariic oo kale oo meelaha laga keenay oo ninba in yar deedna wixii baa iskhilaafaya ninba meel buu kasoo qaadanaya waxoogaa yar deedna tiisaasuu doonayaa inuu socodsiiyo ninba tiisuu doonayaa inuu xoojiyo deedna bulshadii baa ku kala qaybsamaysa tafaraaruq fara badan baa imanaya deetana iska horimaad baa imanaya sidaynu qabiilkii isugu dili jirnay oo kale unbaa haddana qabiilkii unba xaggan diinta loo weecinaya yani taasi waxayna anfacaya maaha halkeediina ma joogno waktigeediina ma joogno meesheediina ma joogno dadka noocaasoo kale ku fikiraya markaa bal waxaaga waa si dib ha u haystaan war dadku waa islaam boqolkiiba boqol waa islaam awowyaasheen baa islaam ahaa innakaa islaama wax inagu cusub oo islaamnimo cusub oo laynoo keenayaana inay jirto ama ay faa'iida ku jirto uma malaynayo taasna iyadana saasaan kusoo koobilaa ama kaga bixi lahaa ta kale markaad eegto beryahan dambe waxa soo badanayay isku dhacyadii qabiilada iyo waxbaa soo yara noqnoqonayay oo kolba si ay kusoo noqotaba kulley ingelinaan ka maqnaa yacnihii social media oo aanan waxdii aan soo qorqoro mooyaane ka hadli jirin waxyaalaha noocaas oo kale ah yacni waxay tahay nin walba inuu mas-uuliyaddeeda taas qaato gobol walba oo aad joogtid yacni mas-uuliyad cid kale ha ka sugan inay qabato dowladduna dabcan roolkeega waa inay muujiso mar kasta oo iyadu wax kastaba leadership ka qaadato waayo waddanka iyadaa xukunta de hadduu islaan meel qodo xukumido iyadan baa loo haystaa un taasina waxoogaa waxaad moodaa in intan dambe ay soo wanaagsanaanaysay laakiin mararka qaarkood gaabis aad u fara badan ayaa jiray marka waxa kaloo jiro oo ay dadku ka sheekeeyaan in yacni xoolihii iyo hantidii dowladda masaakiinta wax loogu qaban lahaa uu ku takrifal badan u jiro taana waxay tahay again yacni waa dhaliil kale oo ay dowladdu leedahay inay qaadatay tahay inay saxdana way tahay yacni sanad baa soo dhammaaday sanadkaasi maxaa la qabtay in dadka la tuso oo itusoo itaabsi ay jirto xaq bay u leeyihiin inay arkaan wixii la dhagax dhigi jiray oo wax ka soconayaan yacni xaq bay u leeyihiin inay arkaan oo la yidhahdo ma garanaysaa warshadda malabka meeshaasi laga bilaabay waa la dhagax dhigay waa la bilaabay way socotaa waa sax halkan kale waxaasa laga bilaabay way socotaa waa sax in wixii la arko biyo la-aan baa meelo fara badan laga sheegayaa ha u badnaato gobolka shinil oo kale ishaco oo kale yacni waxaa laii sheegaya iyadana in gobolka daawo meelo badan oo ka mid ay biyo la-aan ka jirto howlahaas bay tahay dowladdu inay aada u mashquusho oo ay wax ka qabato marka haddii ay wax ka qaban weydo oo dadku dhaliilaha ay sheegsheegaanna maaha inay dadku dowladda nacayaan amabase ay ridayaan maaha wixii dhaliilo waa la sheegi shacabka waa loo hadli sidii loogu hadli jiray unbaana loogu hadli wax la joojinayana taasi maahan marka arrintaasi taana kaga soo gudbo yacni dhaliishaasi dowladdu ma aha in dowladdii la duminayo ha u arkin in dowladdii la duminayo gebigeediiba oo xagga kale loo rogayo dhaliisha haddii aad qaadin weydo ma saxmaysid haddaad saxmi weydana waddanka saad kusii hogaamisaa way yaraanaysaa waxaa kaloo jira dad badan oo iyakuna tirsanaya in ay ka maqan yihiin nidaamka dawliga oo kale amase matalan baan lagu soo darin oo kale anu waxaan qabaa dowladdan iminka jirtaa in xagga representationka marka la idhahdo iyo kusoo daridda qabiilada kale inay ka roon tahay kuwii hore u jiri jiray bal kuwaa laftoodana dhaliilahooga in hoos loo eegaa iyaduna ma xuma oo waxay keenaysaa un magaranaysaa wanaag unbay keenaysaa dadkii in lala fadhiisto inay dowladdu dadkii la sheekaysato taasi macnaheedu maaha in odayaashu inta lala fadhiisto ay maalin kastaba go-aamada dowladdu ay gaadhayso qayb ka ahaadaan maaha dowladnimadii waa meesheeda laakiin dadkiina in si mid ahaata loo eego in mid ahaata lagu eego isla markaana la tashado wax laga weydiiyo
wixii dareenkooga ah wax laga weydiiyo wixii ay wax ku saxmayaan. taasina waa wax loo baahan yahay oo u baahan in waqti badan la geliyo. saas bayna dowladnimadu kusii soconaysaa. dadka qaarkood oo meelaha iga soo wacwaaca waxay ku leeyihiin waniyo inay dowlad jirtiyeen kaleba aada loo garan maayo ayay ku leeyihiin. waa dhaliil soo jirtay sanadkaa dhan ee ay dowladdaasi jirtay, waana wax u baahan in hoos loo eego. malihi dadka hala karbaasho hala laayo oo magaranaysaa ganaca laga wada laago malihi oo lii booliskii inta amar lagu soo siiyo hala idhahdo magaranaysaa war nin walba fuqa jabiya. taa malihi. laakiin se dowladnimadu waa in ay muuqataa, sharcigu waa inuu koreeyaa, waa in loo sinaadaa. waxyaalo badan oo jileecoo meesha ka muuqdaa waa inay ka baxaan. yacni marka waxyaalaha noocan oo kale ah social mediaha lagu baahinayo ee dadka qaarkood aada wax loogaga sheegayo oo magaranaysaa ururada qaarkood lagu magacaabayo oo wixiina aanay waxba ka jirin. dowladdu waxay leedahay mukhaabaraad bay leedahay, si ay wax u baaratay leedahay. waxaasoo dhan in ay soo baarato oo iyadu salkiisa ay gaadho, isla markaana wixii xaqiiqa ay dadka usoo bandhigto. taasaa muhiima. ma ahan inaynu markastaba magaranaysaa xorriyatul qowl baa layidhi haye wax kastaba uu iska bannaan yahay oo dadka qaarkood qadaf badan loo geysto, wax laga sheegto oo magan dhib loo geysto, la xagxagto, la turaantureeyo. maaha taasi waa waxaan fiicnayn wey oo dowladnimadana ka baxsan. dowladdu marka waxay qosban tahay in ay dadka yacni ammaankooga sugto, inay sharaftooda ilaaliso, in magaranaysaa wixii mulkigoogaana ilaaliso. iyadaa u dowlada waddanka, cid kale oo dowlad oo meesha ka jirtaana ma jirto. haddii taasi ay jiri weydo waxay u ekaanaysaa marka wixii dadku ay sheegayeen inay wax ka yara jirjiraan bay u ekaanaysaa taasna. taana markaan intaasi kusoo koobo waxaan sheegi lahaa oon haddana magaranaysaa dadka weli usii caddayn lahaa in ururkii siraaj uu jiro, isla markaana uu shir ku qabsan doono waddanka gudihiisa. shirkaasi baa lagu go-aamin doonaa yacni xagga aynu u soconayno. su-aala halkan igu soo weydiinaya jira miyaa la jiraa, yacni miyaad jirtaan oo kale. haa waanu jirnaa, laakiin garabyaa cumaan iska nacaynay. yacni inamo kaloo badan oo social media igu weydiin jirayna way jireen waa nimankiinaasi dadka waad kiciseen. laakiin markaa dadkii xamaasadoodii 120 gaadhsiisay maad markii yaata waa aamusteen. way dhacday yacni khaladaad jiray ha ka mid ahaato, habase haatee annaka laftayaduna maanaan nasanaynin oo waxun baan xeerinaynay. iskarabyaacaasun baan nacaynay, in dadku iskarab yaacaan, in magaranaysaa wax la kala jiito, taa un baan nacaynay. haddiise waxaad yacni waqti ku filan oo aanu iskarabyaaci magaranaysaa nidhaahno waanu idiin daynay, waqti waa laydin siiyey, waa la soo gaadhay, 1 sana ka soo wareegtay. haddeed markaa haddii aadna aragtaan annakoo meelo badan wax ka sheegayna ama wax dhaleecaynayna, ha moodina inaan magaranaysaa waqti siin weynay. waqti waa la siiyey, waqtigiina wuu soo dhammaaday. haddeed waxay noqonaysaa in magaranaysaa kolba sidii ay noola muuqato, xalku siduu noola muuqdo iyo wanaaggu siduu noola muuqdo waanu ka hadli doonaa haddii ilaa yidhaahdo. kana aamusi mayno, cidna loo joojin maayo haddii ilaa yidhaahdo. yacni dadkaas ka tirsanaa ururkan ayuunbay u taallaa yacni waxa ay doonayaan iyagu in ay ururkii ka dhigaan. hadday doonayaan inay xisbi ka dhigaanna ahlan wasahlan. hadday doonayaan inay ka dhigaan magaranaysaa pressure group oo yacni koox ismaamusha iyadu oo wanaagga had iyo jeer dadka ku boorisa oo dowladda magaranaysaa ceebahayga banka soo dhigta, wixii ay iyagu jeclaadaan unbuu ahaanaya oo sidaas buu ku soconaya. midda kale midna ku darsada, ciddii dowladda ku biirtay xisbi kale ku biirtay. yacni ciddii xisbi kale ku biirtayna annaka naga sii mid ahaan mayso. anigu haddaan beritoole dowladda ku biiro niyadaygagama jirte waa noqonaysaa magaranaysaa inaan ka baxo ayay noqonaysaa oo cid kale hawshii ay halkii kasii wado. taas haddaan sidaa idhaahdo waxaad moodaysa beryahan dambe haddana in waxaan ka hadlayaa iminkana waxoogaa qabyaaladda waan iska soo kookoobayaa. waad moodaysa inahan dambe in ay nagu soo yar badanaysay soo hadalqaadkeeda, ka sheekaynteeda iyo mararka qaarkood ku dhaqankeeda. yacni soomaali maanta waxaa halkaa dhiga meel kastay joogto waa baashaasi. bahashii waxay ahayd in aynu la dagaalanno, inteenna wax qorqorta, inteenna wax fahanta, in nin walba waajib saaran weeyaan in baashaasi xumaanteeda aynu ka hadalno, in wax wanaaga inay soo wadin ay jirto yani ayna jirin, dib mooyaane faa'iido laga gaarayaana aanay jirin. waxaad moodaa dadka qaarkood in ay aad yacni ugu talax tagaan waxyaalaha qaarkood. waa laga fiican yahay waxaasi. matalan ba reerka markastaba madaxtinimada haya waxaad moodaa in aad loo yara xagxagto, bal iyo ka gudoowii baa xoogaa is yara xagxagta. yacni buurtaynu u bixinaa, waxyaala badan baynu u bixinaa, waynu ku dacaadaynaa.
laakiin kaftanka iyo way kala duwan yihiin waxyaalaha la isku yar feedha xagayo iyo eryadka la is eryanaya way yar kala duwan yihiin haddii nin reer dhagax buurihu maanta madaxtinimada hayo maaha reer dhagax buur oo dhan baa madaxtinimada hayo maaha iyaga laftoodana 6dii bilood ugu horreysay waxoogaa si ay ka noqotayba waxay moodeen in magaranaysaa reer dhagax buur oo dhan ay laakiin markii dambe waxoogaa wax badan baa soo kala cadaaday marka bal reerkaana dhibka lagu hayaa laga yareeyaniyo waa yacni si xun baynu u jiidjiidnaa meelahaas bal nimankaana ha laga yareeyo haddii mustafa cagjar uu khalad sameeyo maaha reer dhagax buur oo dhan baa khalad sameeyey maaha waa laga yar fiican yahay taa aynu iska dayno yacni dadkii unbaa sii kala fogaanayay un haddii aynu dhahno ma garanaysaa qolyihii uu ka tirsanaan jiray ninkii jaayirka ahaa ee meesha joogi jiray dhammaantood way xumaayaan inaynu aaminana waa khalad taasina oo haddii la idhahdo reer cabdillo oo dhan way khariban yihiin taasna waa khalad yacni waxyaalaha dadka sii kala fogeynaya ayay ka mid tahay yacni baashii qabyaaladahayd baad moodaa inay inagu sii rusuukhayso oo lafaha inoo sii gelayso oo ma garanaysaa maskaxda inaga gelayso oo ficilkeennu ka turjumayo oo hadalkeennu ka turjumayo oo waxyaalo badan oo noocaas oo kale ah inay jiraan aan waxaan aaminsanahay dadka waxyaalahaasi ku hadaaqaya ee aadka u sii aaminaya ee doonaya inay weliba ku faa'iidaan ay wax ku helaan waa kuwa ummadda burburkeeda iyo jabkeeda ka shaqaynaya qofna yaan lagu tixgelinin reerka uu yahay ha lagu tixgeliyo shaqada uu qabto qofna yaan lagu tixgelinin magaalada uu ku dhashay iyo cidda uu kasoo jeedo ha lagu tixgeliyo shaqada kolba uu qabto ha lagu qiimeeyo yacni oo ha la yidhaahdo magaranaysaa ninkaasi xumaantaasuu sameeyey yaan la odhanin reerkaasi ree hebelow xumaantaasay sameeyeen yani waa heer haddii aynu gaari lahayn aynu wax badan qabsan kari lahayn aynu etoobiyada kale la tartami kari lahayn aynu magaranaysaa waxyaalo badan oo danteena aynu qabsan lahayn taasna waxay noqonaysaa in waa rool cid walba ay tahay in uu waajibkiisa qaato haddaad dhalinyar tahay haddaad oday tahay haddaad sheekh tahay haddaad shariif tahay haddaad wadaad tahay haddaad waranla tahay yacni waa meel u baahan in laga hadlo waxna laga qabto midda kale oo iyaduna beryahan aadka loo hadal hayo oo mar hore maa soo arbaaday yacni dadku waxay leeyihiin musuq baa jira haddii aanu musuq jiri lahayn lacagta intaasoo bilyan ahayd oo sanadkiina soo dhaafay la isticmaalayay kulley meel ay gashay baa la arki lahaa iyay dadku qaarkood ay leeyihiin taasna waxaynu u baahannahay inaynu si mid ahaata ugu soo horjeedsano haddii musuq uu dhacay degmaad joogtaa degmadaada wixii loogu talagalay haddaad ka weydo adigoo oday ah adigoo magaranaysaa hooye ah adigoo wiil ah adigoo dhalinyar ah adigoo arday ah adigoo macallin ah yacni waxaasi waa xaqaagii inaad ka hadashana xaq baad u leedahay adigoon magaranaysaa si fawdi aan u dhaqmaynin islamarkaana aan dagaal iyo rabshad iyo balaayo kicinaynin xaqaaga si aad u sheegan kartaa jirta mediaha jira social media jira cid kastaa jirta yani si aad waxyaalaha noocaas oo kale ah loola dagaalami kara ayaa jira waxaan ku sheegayaa haddii aynu musuqa iyo qabyaaladaasi meel iska dhigi lahayn inkastoo malaa waqti badan u baahanayso oo waxaan dee wax in badan aan kusoo jirna uu yahay haddana waxaan aaminsanahay in nolosha aynu ku jirno maanta tu ka duwan aynu geli kari lahayn ayaan aaminsanahay in khilaafku u yaraan lahaa in dhibka iyo isjiidjiidka gudaheenu u yaraan lahaa magaranaysaa in cidda wax inaga sheegta yani ay iyakun waxaas dib u noqon lahaa iminka laakiin waxaad moodaa in aynu bartanka u naalo waa hilib yar oo waxaan noqonay 500 oo waraabe dhexdooda lagu tuuray ayaan iska noqonay gebigeennii yacni ninka axmaarka ah ee maanta waxyaalaha noocaas oo kale ay naga sheegaya in cid la hadlaysaa jirin dowlad ka daba hadlaysaa jirin nin shacaba wax weydiinayaa jirin ka soomaaliga ah haddii uu kelmad yiraahdana waynu goosanaa yacni waynu xaruufanaa waynu xaganaa waan turaanturaynaa laakiin kaasi wax la hadlaya iyo wax ka falcelinaya iyo arki maysid bal qaarkeen baa laga yaabaa inaynu aragno inuu hiiro yahay wax aad soo taataabtay yani dadka waxaasoo kale kasoo shaqayn lahaa oo aanu bixiyey kooxda magaranaysaa maqalo oo kale waxaan odhan lahay niyo haddii aad wax meesha ku haysaan uu cad yahay iscadeeya oo wixii cad ka hadla idinku hadla meesha soo fadhiista maxaa kugu kalifay inaad cid aan soomaaliya intaad u tegtid aad markaasi af xabashi wixii lagu soo gudbiyo adigoo soomaaliya maxaa kuu diiday inaad hadashid biyaa kuu diiday cidna kuma xidhaysee waad garanaysaa maanta waddanku siduu yahay haddaad joogto garanaysa annaka noo soo dir annakaa sheegi waxaan hadduu wax cad yahay aad cabsanaysid wey laakiin runta haddii la sheego waxaasi oo kale waa waxyaala ku tusaya daciifnimadeena iyo halka aynu naalo yacni qiimaheenu maalinba maalinta ka dambaysu hoos u sii socdaa halkii aynu filaynay inaynu iminka magaranaysaa xorriyatul qowl helnay oo aynu meel fiican marayno oo aynu magaranaysaa wanaaggeena iyo horumarkeenu kor usoo kacayo ayaad moodaa dadnimadeennii inay hoos usii dhacayso
marka bal kor ha la isku qaado waxyaalaha qaarkoodana aynu ka wareegeysano iyaynaan ku kicin wixii ina kala jebinaya ee ina baabi'inaya aynu isku dayno bal wixii ummadda dan u ah ee lafaheenana ay wax ugu filan yihiin if iyo aakhiraba inaynu ka hadalno inaynu ku dadaalno inaynu ku dhaqanno yacnihii waa wax aad looga xumaado halkii shalay un haddaan maantana hoos ka sii marno inaynu hore u soconnay ahayda haddaynu dib u soconno oo inaynu dowladnimada adkeynay ahayda haddaynu garanaysaa waxyaalo kaloo malayacni intaan ku mashquulla aynu waxaa kale adkayno waa laga fiican yahay meel la u socon mayno meel la gaari mayno marka haddii aynu gacmaha isqabsan weyno aynu qabyaaladda ka tegi weyno aynu magaranaysaa midnimada ka shaqayn weyno waxay noqonaysaa uun mar kastaba in laynagu magacaabo kililkii dib u hadhay maalinta u dambaysana maxaa diidaya in ku kale lagugu daro garanaysaa awrkaagii hadduu socon waayo awr kalaa lagugu xidhiidhin oo weliba dabada kaa cunaa oon kuna naxariisanin iyo dabada lagaga xidhi yani waa waxaad adigu geysatay weeyi markaad intaad ka cararta halkan aad magaranaysaa aad sababa u waxgeygeynaysa meelahaas ee haddana maqaliya meelaha waxgeygeynayso maxaa kugu kalifay ayar maad timaadid maad la hadashid yani maad ka hadashid waxan maad si caddadka usoo dhex dhigtid yani adigiiba haddaanad kalsooni ku qabin wixii aad gudbinaysay macnaheedu waxaasi inuu wax jira yahay oo macno badan uu leeyahay u malayn maayo dhanka kalena waxaan ka hadli lahaa haddana waxay nagu soo dhow waktiguna uu igu gaaban yahay waan degdegaya doorasha yaa la sheegayay oo la leeyahay waa la geli doonaa etoobiya doorasha geli doontaa baa la leeyahay waa dhici kartaa in doorasho la galo doorashadaasina sidaynu doorashooyinka u naqaanay kuwii dee etoobiya ka dhici jiray hadday tahay doorasho waa ku shubasho udhahdaa baa jiri jirtay yacni ciddii meesha joogta unbaa markaa soo baxda taas baa la odhan jiray inay wax isbedelaanna way dhici kartaa inaanay isbedelina way dhici karaysaa laakiin aynu isku dayno inaynu shacabkeena kasbanno intaynu meelo kale isku dayno inaynu kasbanayno taan ka waday inaan ka hadlo taasi ahayd ninkii doonaya in uu shacabkiisa wax u qabto oota shacabkaaga kasbo waxaad ku kasbanaysaana waa wax u qabasho waa cadaalad magaranaysaa waa sinayn waxaasoo dhan wanaagoo dhan shacabkaaga ula kaalay deedna shacabka markaa waad kasban kartaa quluubtooda haddii shacabka quluubtooda aad kasbatidna cid kale uma baahnid waad soo bixi karaysaa mar walba laakiin se haddaad ka raadiso kasbashadii iyo wanaaggii iyo wixii haddaad meel kale ka raadiso oo intaad adsaba tegto aad iska soo dhaadhiciso lacagii loogu talagalay in islaamta miskiinta ahee ariga baadiyaha ku raacaysa in ceel biyood loogu qodo haddaad dad kale jeebadda ugu shubto oo kuwaasina ay ku keenaan meesha yacni berri toole waxa la faa'iidaad soo sidaa inay jirto u malayn maayo shacabku waxay u baahan yihiin wanaag shacabku waxay u baahan yihiin cadaalad waxay u baahan yihiin horumar uma baahna buuq iyo kala qaybin iyo isku dir iyo rabshad uma baahna oy kasoo daaleen waxaas waynu naqaanaa dhaqaalaheena iyo itaalkiisa inta uu yahay miskiinnimada dadkeena iyo baahida taalla waynu ognahay dadkii lasoo barakiciyay weli inaanay noqono kuwaa laftooda in loo gargaaro ay u baahan yihin waynu ognahay iyadoo waxaasoo dhan ay noo joogaan maba haysanaba wakti aynu cid kale iskaga dhaadhicino oo aynu isku xoqxoqno war ninkii sideenna inagu raacaya inagu wadayaan ha inagu wado sida aanu nahay iyo dhibka aan ku jirno kii meel kale inooga imanayaana dee hadday sidii hore lagu soconayo taasina waa nasiib darro kale iyo ayaan darro kale oo soo biirtay yacni waxba isma aanay bedelin bay ka dhigan tahay haddaynu si kale u dhigno marka intaasaan kusoo koobi lahaa waan si yara degdegayey laakiin waan soo noqnoqon doonaa haddii ilaah yidhaahdo aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu